السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا قالقة وشانل كيني ماما شرف وإذا له سوري هذا ملك الصوت نزل دافية كجوكتين ولا له هي قالقة ما أنت نوحا إذي هاي وحيت هاي قصة يا بدن وكل عضي كبر ولا شين قصة ذا سو إيه هاي ولا له قالقة أنت بدن وحا أنك كهذا أنا جنال كان أو كشيك يا وحيت هاي براروجين تأيو wacyigelinta bulshadeena Soomaaliyeed ayuu ka hadlaa janalkeena maama sharaf walaaleyga qaaliga ah sida in walba aad uga tixnaateen maantana waxaa idil wadaagayaa qisadaas oo ku dhacday gabadhaas ayadoo oo tiri walaashay waxaan ka rabaa inaa ila talisid marka waxaa dhacday walaaleyga qaaliga ah in ay ninkii ayada ay isqabeen ay iskhilaafeen markay iskhilaafeen ninkii wuxuu ku noqday nin qeyr mas'uul ah walaaleyga qaaliga ah waxay tiri yani salaada ilaahay ma tukado marka koowaad ay tiri marka labaad ay tiri waxaan ku qabaa dhibaato aad iyo aad u xun oo xagga familiga ah waxay tiri ma tixgeliyo waalidkay ama walaalahay haddii ay yimaadaan guriga waxay tiri waxaan ku qabaa dhibaatooyin aad iyo aad u badan waxaan iri madaxayga isii inaan kala tagno ayaan u baahanahay waxay tiri wuu iga diiday inaan kala tagno aniga waxaan wataa tiri caruur badan cid ifoom garaynayso ama isaacideyso meel kuma ogi walaaleyga qaaliga asagina waxay tiri waaba saaqiduu noqday xargi alla wuu ka furtay salaadii wuu tukan la'yahay shareecada islaamka horta kaasoo kaleto waxay banaynaysaa in laga haajiro bis laakiin ilmaan wataa aada u badan maanta haddaan guri ijaar galo ijaarkii ma iska bixi kari ma ogi qof maanta isaacidayo ama wax iisoo diraayo meel kuma ogi hooyaday waa iska boobareeto miyigay degan tahay aabaheedu waa horoo dhintay ma noolo walaalahay waxay tiri saas uma badno inta joogtana waxba ma haystaan waa dad boobaraa ayagana asagina sidaasoo ugu noqday walaahi waa cajiib waxaan ku iri walaalay macaantooy ani maanta waxba kuuma qaban karo ilaahay weynaha waxa qaban karo kumana dhihi kari ninkaagii ama iska fur ama ka haajir ma ku dhihi kari aniga dambi baa iga soo gaarayo bis waxaan kugula talinayaa inaa ilaahay barisid asna aada waanisid markasto salaada ilaahay aad ku baraarujisid oo aad tiraadid niyahow annagaa meeshaan ilaahay ka sokow adaan kuu joognaa inaad anaga mas-uuliyadeena ogaatid in nafaqadeena iyo wixii oo qodol daruuri aan ka rabno aan ka helno inaa ogaatid bis markaas waxaan ku iri markaas waxaan dhahay walaalay macaanto ilaahay u bari tala kale kuuma haayo ilaahay u bariyaan dhahay bis wallaahi waxay tiri walaalay ilaahay waa u bari salaad walbo aan tukado ilaahay waxaan ugu baryaa in ilaahay ninkeygii iga dhiga nin saalaxa muumin ah salaadiisa tukado xaqa aan ku leenahay ogaado ilaahay nooga soo qaado xaqa aan ku leenahay markaasaan waxaan ku iri baryada ilaahay ha ka caajisin salaatuleyl tuko dadka markay wada jiifaan ay hurdada meel fiican maraysa 8 saac oo habeenimo ay tahay qofkii inta soo kaco weeseysto laba sunno oo salaad inta uu istaago ilaahay baryo wax alaali wuxuu ilaahay ka baryo ilaahay waa ka helaya ninka waxay tiri sidiisa kale uma xumo laakiin walaalay waxaa waaye tiri ninkii wuxuu uga noqday waxa duleeyay oo kaliya waxaa waaye tiri balwada oo leeyahay duleysay tiri sidiisa kale oo aniga meelaan ka aadana ma aqaano meelaan u baxana ma aqaani ma iska maarey kari ilmihii ma ka tagi kari
mana uga tagi kari mana wada kari ilaahu rabbi raxmaan oo dhibaatada idibka naga qaad ilaahay wuxuu qadaray inaa asagaas iska ag joogno asagina hadda saas ugu noqdo walaale marka waxaan dhahay salaadaas iska tuko 8 saac soo kac gacmaha kor u taag israaqadana ilaahay haayo ilaahay waxba nooma weyn nin walba sawirkiisa ugu fiirinaya asagana insha Allah hada ilaahay u barsid oo mar walba baraarujiso tiraado ilaahay ka baq rasuulkiisa ka baq hada tiraado ilaahay inuu hagaajiyo laga yaabaa oo noqdo nin fiican salaadiisa tukado ilmihiisa ogaado xaaskiisa ogaado ilaahu sahanuun rabbi raxmaan ilaahu naagta muuminada ay ninka muumina rabbi raxmaan salaadaada ugu soo hanuuni ilaahu rabbi raxmaan oo ilaahu rabbi raxmaan ummadaadan hay sheedaanka ilaahu rabbi raxmaan sheedaanka qabo sheedaana jiro oo shaqeysanaya rabo wuxuu duufsado ilaahu naga qabo sheedaanka rabbi raxmaan wallaahi billaahi taala gabadhaas aad iyo aad ayaan ula marigoodo walaalahay qaaliga waan ka calool xumoodo wallaahi hadda meel ay u carabtana ma lahan meel ay joogtana ma lahan marka ilmo yaryar oo aad u badan oo yaryar u raaca oo maanta haddii hilibkeeda inta la gooyo dab loo saaro loo kariyo ee la yiraahdo fuudka kacaaw hilibkan cun la dhaho ayaa ku xariiro ilaahu rabbi raxmaan oo noo soo toosi nimanka oo ilaahu rabbi raxmaan oo sheedaanka ka qabo oo ilaahu rabbi raxmaan oo waxyaalaha qaar ay barteen urso u saar rabbi raxmaan oo ilaahu rabbi raxmaan xaq aan ku leenahay rabbi raxmaan oo nimankeena tusi alla maxaa hooyo Soomaaliyeed oo badan dhibaataysan tahay oo meel nin dhibaato ku haya ay joogto alla maxaa hooyo Soomaali dhibaataysan tahay ilaahu rabbi raxmaan oo hooyo dhibaatada ka bixi oo ilaahu rabbi raxmaan oo hooyo jannada ilaahu rabbi raxmaan hooygaaga jannada ka dhig ilaahu hooyo rabbiga ku bariye hooygaaga jannada ka dhig hooyo ilaahu cadaab rabbi raxmaan hooyo maxay dhibtootay hooyo maxay dhib naga soo martay markay caloosha aan galnay ilaa intii aan ka dhalanay ilaa intii aan ka weynaanay ayaan dhibaatadaas ee hooyo naga soo martay hooyo wax la heli karo ma aha hooyo waa dhibaatada midda u adkaysato hooyada runta waa midda dhib kasto iyo dhaawac walba ee ku yimaado ilmaheeda darteeda ugu dulqaadato hooyada saxda waa midaas hooyo walbana waxaan kugula talinayaa hooyo walba oo meel walba adduunka daafeeda ka joogto waxaan kula talinayaa aniga ra'yi ahaanteeda maama sharaf ka ra'yi ahaanteeda waxaan kula talinayaa hooyo walba oo adduunka joogto intii ay u dhabar adeegi karto ilmaheeda inay u dhabar adeegto oo ilmaheeda aysan iska daadin oo ilmaheeda aysan iska dayicin oo ilmaheeda ay ogaataa oo ilmaheedaas tii arugsato baga ku haysato dib walba dhaxda ay ugu xiratay inay noqoto layskama helo ilmaha waa ilaahay wuxuu noogu deeqo waa dad baa hal cunug kaliya haysanin meel walba adduunka ka tagan si ay ku helaan hal cunug si ay u helaan ilaahay intaan awlaad haysan rabbi raxmaan awlaad si adaa awlaada bixiy rabbi raxmaan intii haysatana ilaahu ku israaq oo israaq waasac si rabbi raxmaan ilaahay rabbi raxmaan israaq waasac si hooyo walba meel walba ku dhibaataysan ilaahu dhibaatada ka bixi ilaahay rabbi raxmaan hooyo walba oo ilmo inta lagu furay ee ilmihii meel la joogto ee kii ku furay aan waxba ku siineynin alla maxay hooyo badan ay jirtaa oo inta ilmaheedii lagu dayacay oo ilmihii ay ayada kaliya ku dhibtootay oo ilmihii ay dhan walba kaga martay ee asagana inta meel iska istaagay iska istireexayo alla maxay adduunka hooyooyin saas dhooban yihiin alla ilaahay rabbi raxmaan hooyo walba oo meel walba joogto rabbi raxmaan israaq waasacsi ilaahu israaq waasacsi rabbi raxmaan adaa weyn waaxide yaa alla maxaa hooyo rafaadka magaalada ka buuxdaa adduunka daafiisa meel walba alla maxaa haddii maanta raggeena Soomaaliyeed oo aad hooyada xaaskaagii inta awlaad ku dhashay kala dadku waa banaaya waa wax xaq alla ka banaanaaday
in laysqabo haddii laysqabi waayana la kala tago haddii la kala tagay ay hooyada ilmaha hayso intaasoo ciyaalo hooyada ku hayso oo aad adiguna ku deerisay oo aad waxba ku siinin ilaahay adna waa kaa jaaseynaya taas abaalkeeda waa helaysaa ayadana jannada ugu duceeyey jannada ilaahay waxaan ugu duceeyey in jannada kabaha aan looga siibin ilmaheedana ilaahay baari uga dhigo tii wax ku dheefsato ilaahay uga dhigo taasaan ilaahay uga barya hooyo walbo oo lagu ilmaheedii inta lagu furo lagu dayacay ee uu aabihii waxba ku sii waayo asagoo riikaaho lacag haysto oo 1,000 shilin ku sii waayey oo maanta hataa $50 oo caanaha ku gada hataa dhihi waayo waa buuxaan maxaa hooyo badan oo sidaas u dayacan magaalada meel walba adduunka daafiisa ay joogtaa alla ilaahayow rabbi raxmaan oo dhibaatada adaa ka bixi kartid ka bixi oo ilaahu israaq waasac sii ninka inta naagtiisa intaas oolaad u dhasha dayacayne ilaahu xaqa tusi oo xaqa ay ku leeyihiin rabbi raxmaan oo adaa maaliga oo casiisa uga soo qaad rabbi raxmaan oo adaa uga soo qaadi kartid ninkii inta naagtii inta ilmo lagu diray kaligeed inta lagu daayay ee wax lagu sii waayay yaa ilaahay rabbi raxmaan oo aydan taas dibkeeda leedahay ilaahu rabbi raxmaan oo wax qaar qabiy israaq waasac sii rabbi raxmaan oo ilaahay u naxariiso maxaa hooyo badan maxaa hooyo dheexaa lagu dayacay ilmo intuu furay ayuu ilmihiisina ku dayacay ma aha walaalahaygiyo in sidaas loo galo ma ahan hooyooyinka Soomaaliyeed awlaadaada heeso oo aad kala tagteen waxaa loo baahan yahay inaad siisid wixii xaq iyo xaquuq ay kugu leedahay ma ahan inaad ilmahaaga ku dayacdid arrintaas waa arrin aad iyo aad u foolxun lagana xumaadaa kii suubiyan ilaahay waxaan kaga baryay in xaqeeda uga soo sahlo ilmahaas iyo xaquuqda ay ku leeyihiin ilaahay inuu uga soo sahlo ilaahay uga baryaa ilaa wax kale oo aan qaban karo maan waa aan duceynaa ducaan baan haayaa ilaahay ducadaasna ha iga aqbal rabbiga raxmaan weesa ay dhowran ilaahu iga aqbal rabbiga raxmaan ducadaas hooyo walbo dhibaataysan oo meel walba adduunka daafihiisa ilmo lagu deeriyo ku haysato ilaahay rabbi raxmaan oo israaq waasac sii oo ilaahay raxmaan oo rabbi raxmaan oo kuwii ay ku dheefsato ay ku anfacato ilaahu uga dhig rabbi raxmaan oo ilaahu baari saalax uga dhig rabbi raxmaan inta dhibaatadaas laga soo maray ilmihii hooyadii lagu dayacay oo hooyadii badarkoodii waxoodii dhibkoodii wax walba ay dhaxba ku xiratay haddana caasi ku noqdeenna waa la arkay ilaahu rabbi raxmaan oo caasi nooga dhigay ilaahayow inta islaana iyo inta oolaad haysata iyo annagaba rabbi raxmaan oolaada baari nooga dhig ilaahu oolaada baari nooga dhig waxa la dhalaayo in lagu dheefsado aan rabaa ma ahane in yacni inta kaa tagaan duurka kaa galaan kugu caasiyaan ma ahan ilaahu caasi ha naga dhigin rabbi raxmaan oo ilaahu baari inta islaana oolaada haysato uga dhig intaan haysan ilaahu rabbi raxmaan oo oolaada sahal adaa oolaada bixiya ilaahu oolaad sii ninkan oolaad haysan rabbi raxmaan oo ilaahu oolaad sii rabbi raxmaan raggeena Soomaaliyeed oo xaasaskiina aad furteen ee oolaada idii dhalay oo aad ku dayacdeen intaad dib isugu laabtiin intaad ilaahay ka baqdiin intaad soo xasuustiin in la dhimanayo 2 mitir la isdhigayo ilmahaaga dhaqaaleyso oo ha ku dayacin hooyada ku haysa ilmahaaga ee aad kala tagteen hooyadii markii ay kala tageen ninkan ay caruur badan ay haysato waxay ku fakaraysaa nin haddaad guursatid hal kale kugu daraya barigu kaa tagaa asagana kuwana way kaa hagaasayaan ayagu kaa fiirinaya ayagu kaa rafaada maxaa hooyo dheexaa ayadoo 10 kale dhali karto saas iskaga dayso guur waxaa ku kalifaya guurka inay iskaga dhaafto soo waxaas oo kale ma maxaa in badan aan arkay hooyooyin badan ee dhali karo ayagoo dhalinyaro inta kala tageen ninkii ee ilmahaas inta fiirisay tiri ma kuwana ka tagi kartaa beri ninkaa guursata ayagay kaa fiirinaya asagoo kaa fiirinaya wuxuu leeyahay ninkaa ugey ninka dhal ilmaha 20 jirka 1 iyo 2 iyo 3 laga helaa nin ilmaha hooyadaas wadato sida ilmihiisoo kale ka dhiganayo ma jirto beriyaha hore xiiseenayo aaba leeyahay kadibna hal cunug ugu daraya kuwa ilmihii hal cunug ku darsanaya bartay uga dhaqaajinaya dhibkii la u badiyay muxuu sameeyay dhibkii la u badiyay beenal isku sheegay raggeena Soomaaliyeed ilaahay ka baqa oo naagaha aad furteen ee aad ilmihi caanaha lagu siineen ee lagu rafaadinayo hal iska daayo taasaan qabaa in hal iska daayo walaalahayga qaaliga ma ahan in
hooyada saas loo rafaadiyo hooyo macaanteeda kii ilaahay dareensiiyey unbaa dareemo wallaahi bilaahi mid kale inuusan dareemin kii alla qaluubta u geliya dareensiiyey macaanta hooyada baarigaa xabiibkaa unbaa dareemaayo hooyo waa lama huraan hooyo waa hooygii adduunyada hooyo waa hooskii daladii iga oo qoraxda kaa celinaysa hooyo ilaahay rabbi raxmaano kuu naxariisto hooyo ilaahay rabbi raxmaano jannadii kuugu bishaaray hooyo ilaahu dhibkaaga dheef kuugu bedel hooyo ilaahu ku cafi hooyo la-aanteed abaar waaye intii ka dhimatay hooyo intii ka dhimatana ilaahay ha u naxariisto intay u nooshahayne ilaahay ha u deysto oo intaad xayaatada kugu jirto hooyadaa ka duceyso hooyadaa ha ku afcelinin dhib iyo dhibaatay naga soo marta hooyo wax la heli karo maaha ilaahay hooyo walbo dembigeeda ha dhaafo tii dhimatana ilaahay ha u naxariisto tii noolne ilaahay ayadana naxariista ilaahay ha siiyo oo janno firdowso allah ugu wada bishaareeyo hooyooyinka adduunka meel walba ay ka joogaan hooyada dhibaataysan ilaahay dhibkaa ka bixiyo hooyada dhimatana ilaahay janno firdowso ha ka waraabiyo hol janno allah ka dhigo hooyo wax la heli karo maahan hooyo raggeeno waxaa isku ogahay in awlaadii aada nagu dayacinaha oo awlaadiina aada nagu biilatiin oo awlaadiina aada nagu dhibinaha oo dhibaatada aada naga dhaaftiin anagana markaas dhib ma keeneyno waa iska dhaafeenaa wixii dhib ah ilaa hooyada haddii la wanaajiyo oo wax walba la siiyo ila ma ahan inay dheheyso aniga waxaan ma rabi ma yeelaaye nimcadaa ma ku jiraay ma dheheyso hooyo walba oo keenayso inay ninkan ka tagto tii ayadoo iska fadhido inta la yidhi naa waa ku fur iska bax iska dhaaftaas tii kale ku dhegto kalarka qabsato ifur dheheysana ifurta maxaa keena waa dhibaato ayada ay aragto waayo hooyo walba dhibaatada ay aragto waayo ilaahay waxaan ka baryaa hooyo walba dhibaato kasta ay aragto hooyo inuu ilaahay uga gargaaro oo ilaahay dhibkeeda dheef uga dhigo oo ilaahay rabbi raxmaano meel kasta ee hooyo ku dhibaataysantaha ilaahu dhibka ka qaad istiraaq waasac ilaahu sii ilaahu awlaada baari nooga dhig ilaahu shari shaydaanba naga qabo walaalahayga qaaliga ah waad ku mahadsantihiin daawashada ay daawateen walaalahayga qaaliga ah waxaan idka codsanayaa inaad ii sheergaraysid subscribe-na ii saartid laagna aa ii saartid commentina aa ka bixisid gambaleelka aad taabatid walaalahayga qaaliga ah waxaan isku ognahay wanaagga iyo khayrka inaan isfarno taasaan iska codsanaya idinkana igu caawiya sheerka iyo leega waa xaggiina waxbaha ayaan layga hagranin leeg iyo sheerka ayaan layga hagranin waxaan ahay walaashiin u baahan leeg iyo sheer subscribe iyo comment igu saacid aniga waa kugu saacidi lahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.